الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرديدا كحرن شبكة نت بروش waxaa maanta baranaynaa cashir ku saabsan cashiradii hore cashir ka duwan waa sida loo design gareeyo content management system. Waa maxay content management system? Waa design ama system diyaarsan kaasoo ku develop gareyn kartid website nuuci oo doono ha ahaado e-commerce websitekaas without code aada qorida ma jiro. Content management system waa application hore loo diyaarshay, waxaa ka mid ah wordpress, joomla, drupal iyo kuwo fara badan oo hoos imaada content management system. midkan maanta aan ku baran doono waa wordpress sida loo sameeyo bilaash ah. waxaad u baahan tahay inaad technique yar aad ka haysato maadada php iyo html5 css3. haddii aad technique yaris aad ka haysatid uma baahnid inaad cid weydiidid in waxa lay sameeyo aad tirahdid. website-kaaga adiga ayaa building garay karaa, adiga ayaa from scratch to top adiga ayaa sameyn karaa. waxaan rajeynayaa inaad videogan oo idin anfici doono aadan daawo doontiin from scratch to top. waxa aan u baahanahay inaad ogaatid toolska aad u baahan tahay waxaa ka mid ah inaad soo download gareysatid wordpress theme. waa inaad soo download gareysatid. halkan waxaa inoo yaala theme, inta waxaa inoo yaala wordpress. website-ka faalashiisa aan ku sameyn lahayn oo website-kan waa tacab iyo tacliin aan ku sameyn doono faalashiisa, dokumentiyadiisa intaan ay inoogu jiraan. marka hore waxaad u baahan tahay inaad install gareysatid toolska hadba kii aad jeceshahay. waxaa jira zamba, lamba iyo wamba, saddexdaba waa ku sameyn kartaa. waxaa kaloo isticmaali kartaa lambaha markii aad joogtid linux. hadda computerkan isticmaalayo waa linux, waxaan u baahanahay inaan isticmaalo lamba. waxaana isticmaali karaa anigoo joogo linux maadada zamba waa isticmaali karaa zamba any operating system oo saddexda operating system oo ugu caansan oo la isticmaalo way ku shaqeydaa. lambaha wuxuu ku shaqeeyaa computer linux. wambana wuu jiraa oo asigana la isticmaalo mac marka la joogo. waxaan install gareysan computerkan waa lamba. waxaana kaloo mysql iyo php ayaana ka install gareysanay. lamba markaan install gareysanay feature fara badan ayaa la socda. featurada aan ka install gareysanay waxaa ka mid ah php iyo mysql waxay noo qaban doontaa dhanka database-ka, php na waa dhanka front endiga. intaas ka bacdi markaa install gareysatid waxaad u baahan tahay inaad soo start gareydid lamba. linux markii la joogo waxaa la isticmaalaa terminal si aad usoo kicdid lambaha ama any documenti ood u baahan tahay waxaad isticmaalada terminalkaas oo ah si aad usoo kici start gareydid wixii aad shay program aad u baahan tahay linux markii la joogo. laakiinse sambaha sida tegida samba control panelki baa soo kici jirtay, taas ayay lamid tahay. taas ayay ku macno tahay anigoo soo kiciyo control panelki aan ku aqaanay cd ayaan leeyahay, gadaal ayaan degayaa cd slash waxay u taagan tahay inaan root kusoo galo. sudo oo ah root directory-ga aan kusoo galo. directory-ga oo ay ugu install gareysantaha waxaa la yihahdaa apt/lamba /starty fileka inaa ula baxay waa rename gareeyay kabacdi run waa means exe markii la joogay windowska run ayaa inta looga yaqaanaa. kabacdi markii aad shayga aad soo geliday sudo opto oo ah directory-ga /lambi starty iyo fileka oo la start gareynayay. kabacdi wuxuu ku weydiinayaa passwordka markii aad gelinaydid hiding waaye somali 1 waayay. markii aad gelid kabacdi waxaa soo boodaya control panelkii oo aad ka xukumi lahayd lamba markii soo kacda kabacdi labadooda way start gareysan yihiin. haddii aan booqdo dhankan iyo php anigoo aadaye inta anigoo ku dhufanayo waxaan leeyahay php haddii aan open dhaho wuxuu ku furaa browserkan markuu ku furana ama default browserka wixii ku ah open php ayaan dhahay. open php waxaan ka sugaynaa browserkii oo active ka ahay ayuu soo kicinayaa. hadda wuxuu soo kiciyay firefox markuu soo kiciyo kabacdi waxaan sameysanaynaa database kaas oo ah website-kan aan sameyn doono
databasekiisa intee lagu xarin doonaa, frontierkana intee sidee loogu install garaynaa wordpress. terminalka waan ka maarmanay shaqadii, kan close ayaan iska leenahay, uma baahna. markan waxaa shaqeynaya dhankan iyo firefoxka close ayaan iska dhahaa. waxyaabihii hore u furnay waxaan qoraa ip addresska oo php myadmin. ip addresskaasi php myadmin wuxuu ku weydiinaa root iyo passwordkiisa aan hore usoo samaystay. markaas ka bacdi waxaad declare garaysanaydaa ama sameynaydaa database-kii oo kuu qaban lahay website-kaaga lagu xareyn lahay. database-kaas waxaan leenahay tacab_tacliin. database-ka waa create garinaydaa. markaad create garido wax table ah aad sameynayda haba yaraatee ma jirto. tablelada waxaa kusoo shubaya wordpresska sida loo install gareeyo hadda ayaan isla arkaynaa. wordpresska inta waxaan leenahay right click aan leenahay extract here. marka oo dhaho wordpresski faylashiisa intuu ku shubaa. faylashan dhan waxaad leedahay copy aad leedahay meeshii aad ka aadi jirtay markii zamba ama aad php cashiradeed markaad qaadanayday, meeshii aad htdocs fileka aad ka aadaysay waxaad ku shubeedaa. faylashana copy leedahay waa ku shubeedaa. haddii projectyo jiraanna projectyadaas waa iska dhaafidaa, waxaad ku shubanaydaa folder. waxaa leedahay file system means sida adigoo aada ay lamid tahay. kabacdi waxaad ka aadaysaa opta folderka directoryga loo yaqaano opta oo ah cmd da tii haddii aan ku sheegaynay ama terminalka. htdocs waa php taad kusoo aragtay waaye. htdocs afreeda faylashan horay aan u install gareeyay waa right click aan leeyahay, dal ayaan leeyahay, waa laga delete gareynaa. move to trash. faylashaas waa iska trash gareeyay. faylashan kan ku jira ayaan waxaan leeyahay drag and drop si indhahaaga aad ugu aragtid waxa meesha aan u wada iyo meesha aan kasoo qaadayo. control a ayaan leeyahay. control a markaan dhaho drag aan soo leeyahay meeshan ayaan kusii deynayaa. meeshan ayay soo galeen. markii ay soo galeen kabacdi waxaad qoraydaa ip addresska ama local host ayaad qoraydaa. adigoo browserka jooga waxaad qoraydaa ip addresska 127. haddii aad qortid ama haddii aad qortid local host waa same. local host waxaa loo yaqaanaa loopback address aa loo yaqaanaa markii networking la joogo. wuxuu ku leeyahay install gareey wordpresskaaga information ayuu ku weydiinayaa. wuxuu ku leeyahay kusoo dhawow ku leeyahay wordpress waxaad u baahan tahay inaad ogaatid waxyaabahan in aad process garayda these items. kow waxaad u baahan tahay database name, database username, database password, database hosting yaa hosting gareey database-kaaga iyo table prefix. stepka koowaad wuxuu ku leeyahay intan shay waa inaad soo ogaataa. yes intan waan fahamsanaa leedahay. waxaa leedahay let's go hore noo kaxay. wuxuu ku weydiitay database nameka waa annaga kii haddayna hore usoo sheegnay oo ah tacab_tacliin. database aan create garinay ayaa jiro tacab_tacliin. database-ka wax table ah aad adiga sameynayda ma jirto. wordpresska asiga tableka create ku sameynayo, asiga ku install garaynayo wixii table ah. hadda no table waa no table in a database-kan wax table ma leh. markii inta configuration aan joogno waxaan leenahay tacab_tacliin oo ah tacab_tacliin. database-kaas ayaan u sheegaynaa. waxaan leenahay tacab_tacliin. kabacdi wuxuu ku weydiinayaa database-ka usernameka hadday aan kusoo galay oo ahay root iyo passwordkiisa. hadduusan ku lahayn wax password root ayaad qoraydaa, waad ka tegaydaa, wax password ma qoraysid. passwordka ayaan qorayaa. kabacdi wuxuu ku weydiinayaa hostiga local host haddii aad qortid. hadday annaga waxaan kusoo galna local host laakiinse vice versa inay shaqeynayaan ayaan idin tusayaa. labada hosti anoo inta kusoo galay kanna hosti kan waa isticmaali karaa. ip addresskana waa isticmaali karaa oo loo yaqaano loopback address. table prefix tableka maxaa horgalo u noqonaa tb ayaan leenahay.
tb oo ah table u taagan tb haddii meeshaan lagu arko table prefix submit markii aad tirahdid wuxuu wadaa step 1 ayuu ku marsinaa step 1 dhinaca url haddii aan fiirno waa step 1 sorry meeshaan waxaa dhacay error ayaa dhacay oo leeyahay cannot write wp config wp configan ayaan soo fiirinaynaa kabacdi aan kusoo laaban errorka waan soo ogaanay meesha oo ka dhacay errorka waxaa naga maqan filekan inaan create gareyno oo ah wp config configurationka meesha oo ka dhacay inaan create gareyno kabacdi waxaan dhahay waan ka xunoo dhahay laakiin inaad qorto filekan ayaan ka rabnaa inaad create gareydo wp config manually si gacantaada inaad ku sameydid unbasti inaad ku siidid the following text oo ah codekan intana lagu siiyey inaan ku baasi gareyno after you have done run install markii aad filekan soo create gareydo kabacdi waxaa shaqadaada ku wadi kartaa inaad run and install marka control a ayaan leenahay codekan ayna siiyeen control a ayaan leenahay control a markaa dhana waxaan tegaynaa meesha shaqada ay ka socotay meeshaan ay shaqada ka socotay wp config ayaana laga rabaa inaan sameyno kana waxaa leenahay copy aan ka sameysanaynaa meeshaan ku baasi gareynaynaa waxaan ka tiraynaa wp config bis ayaana loo diray rename ayaan leenahay rename markii aan dhahno waxaan leenahay intaan ayaan iska diraynaa wp config haddii aan isku fiirino shayga ay samey dheheen wp config.php ayaa sameyn noo lahay kan markaan sameyno right click aan leenahay open aan leenahay codekan copy aan kusoo wadanay ayaan ku baasi gareynaynaa kan waan iska tiraynaa control wax kooda maanan soo copyin sorry control a ayaan leenahay kan copy aan leenahay control c kanaa ku baasi gareynaynaa marka control v codekan aan soo copysan oo nala siiyey oo ah database namekii rootkii waxyaabahaas ku jiro waa kana waxaa ku jiro tacliin iyo rootkii passwordkiisa ip addresskiisa iyo passwordka oo conversion lagu sameeyey waxyaabahaas oo dhan in la define gareeyo ayaan intan looga baahnay marka waxaan leenahay safe ayaan leenahay safe markaan dhahno kadib meesha ayaan kasii wadaynaa run and install run the install aan leenahay kabacdi step 2 ayuu u gudbaa wuxuu bilaabaa inuu ku install gareeyo tableski jiray iyo waxyaabahaas wuxuu ku weydiiyey in aan usoo gudubnay welcome page-ka ah information aan u baahannahay inaan meeshaan gelgelino informationkaan u baahannahay inaan gelino oo ah site-ka title-ka oo yeelan doono tacab an tacliin tacab iyo tacliin usernamekiisa inaad sameydid passwordkiisa inaad sameydid kabacdi confirm ayaa leedahay waxaad leedahay emailkaaga gashanayda emailkaaga information walba oo la update garay emailkaaga ayaa lagu soo sheegi doonaa 12345@gmail.com kabacdi waxaad leedahay discourage search engine discourage kan haddii aad jaga saartid search engine-kaaga makuu shaqeynaya marka discourage haddii means waxaan dhiirigelin waayey inay shaqeeyaan kabacdi install wordpress tableska leedahay meeshaan hadda tableska waa faaruq sidaan ujeedno laakiin waa lagu soo install gareeyey tableski installationkooda uu socdo weli intaan way kasii badan yihiin tableska aan inta ku aragnay intaan way kasii badan yihiin table qaar baa maqan installationka success ay hadda ku noqdeen refresh haddii aan u dirno tablesku way soo galaan qaarka sidaan ujeedid haddii indhahaaga kuwii hore aad la raacday iyo kuwan dambe isku mid maahan installationka success ay noqdeen wuxuu ku dhahay meeshaan login miyaan ku sameynaynaa mise waxaa leedahay ip addresska toos u qoraynaa si aan u fiirino local host website-ka hadda lagu install gareeyey waa kanaa wordpress waa lagu install gareeyey theme ayaan hadda installationkeeda bilaabanaa themeka sida loo install gareeyo ayadana waa iska easy waxaad tegaydaa qeybta adminka waxaad tegaydaa waxaad leedahay wb oo wordpress u taagan login.php haddii aad qortid wuxuu ku geenayaa pageka loginka sidoo kale wb admin slash haddii aad qortid wuxuu ku geenayaa pageka adminka oo kale waa isku mid waxaa leenahay
usernameka kaynaan aan u sameeyey, passwordkiisana waa midkii aad wada arkaydeen. Login ayaan leeyahay. Login markii aan dhaho wuxuu igeenayaa meeshii dashboard loo yaqaanay oo website-ka laga maamulayay. waxaan bedelaa appearance markaan bedelo waxaan leeyahay theme ayaan leeyahay. Themes waxaa waaye design-ka uu ku dhisan yahay theme-kii aad jeceshahay ayaad isticmaaladaa. Themeska by online waad ku raadi kartaa adigoo dhahay add new theme. add new theme, themekaas waa searching garaynaydaa aad u baahan tahay. waxaan u baahnaa for example theme lagu magacaabo frontier oo kale, ka aan soo download galayso kale frontier themekaas. searching ayaa leeyahay frontierka themekaas ayaa isoo baxaya. frontierka waa kana themekii sidaan u jeedno qaabkan ayuu yeelan doonaa. shabakadii waa la keenay. waxaan leenahay preview before intaan install garayn. preview ayaan leenahay. themeka sida u yaalo waad arkaydin waa kana mouse overkan sida loo yahay. themekan sidana waaye qaabkan ayuu u shaqeeyaa. page submenugiisa saan ay u shaqeeyaan. aboutkiisa marka waxaan install garaynaynaa. themekan ayaan install garaynayaa. themekan already waa soo download garaynay, uma baahno inaan mar labaad maxay network iyo qad aan ku raadino. waxaan leenahay upload aan leenahay. theme aan soo download garayno waaye asigoo zip ah desktopka ayuu noo saarnahay. haddii aan isla wada aragno kii hore waa kana themeka waa soo download garaynay. inta ayaan soo dhigaa. themekan asigoo zip ah waxaa leedahay upload. upload ayaan leeyahay. upload markii aan dhaho themeka desktopka i saarnaay oo ahay frontier kelig ayaan leeyahay. okay open. frontierka intuu soo galay install ayaan leeyahay. wuu install garaynayaa. themeka automatic wuu isbedelaa wordpresski. unable to create directory haddii uu diido this parent directory unwritable by the server. linuxka securitygiisa iyo encryptionkiisa wuu adag yahay. by handing ayaan ku sameynaynaa. by handing anagoo ku sameynayna waxaan u baahanahay inaan kan extract aan dhahno right click. haddii aan isla aragno meeshaan back ayaan leenahay. themes ayaa tegaydaa. themes markii aad tagta saddexdan theme ayaa install garaysan. hadda waxaa active ku fadhiya, kan ayaa active ku fadhiya. labadan kale active garay ku leeyihin. kuwan waan delete garaynaynaa. themekii aan ku shubnaa inta soo dhigaynaa, kabacdi waan soo arkaynaa anagoo by handing aan ku sameynaynaa. themekana right click aad leedahay extract to here waana loo extract gareeyey. filashan aan soo qabanaynaa marka, ama folderkan aan copy soo dhihnaa. folderkan aan copy soo dhihnaa. right click copy. waxaa tegaynaa themeska meeshii ku install garaysiin oo ah file system /opta directoryga opta loo yaqaano. kabacdi lambak c add abaja 2 htdocs wb content themes. kuwan ayaa ku install garaysan. kuwan waxaan leenahay dal ayaan leenahay. dal markii aan dhahna kabacdi waxaan ku laabanaynaa wordpresski. wordpresski meeshan refresh haddaan u dirno kuwan oo active-ka ahaayeen way baxayaan iyo meeshii oo faaruq noqotay. meeshii markay faaruq la noqotay waxaan delete garaynay themekii active-ka ahay. wax file ah oo meeshan lasoo bandhigayo ma jirto. waan delete garaynay, gacantaan ku delete garaynay. marka waxaan tegaydaa themeskan refresh haddii aan u dirno faaruq ay noqonayaan. saddexdan theme way baxayaan. gacanta ayaan ku delete garaynay folderadooda ay ku jireen. themeska hadda raadinayaa markii uu waayana meeshaan inuu 0 soo saaro oo wax theme ah inaysan oonin. error the theme directory 2016 does not exist. hore ma aysan u bixin. kii aan copyga ku wadnaa ku baasi garaynaynaa. wb content themes copy aan ku wadanaa baasi aan leenahay. themekan markii aan dhahno kan ayaa waxaan leenahay refresh aan u diraynaa. themekan noo active gareey. wuxuu noo soo qabanayaa frontier.
waa kan sidaan u jeedno frontier noo soo qabtay 2016 oo hore u jirtay error oo sheegay directorygan ma jiro dhahay kana waxaa leenahay active waa install gareeyay by handing ayaa ku install gareynay waana loo active gareeyay midkan faaruq ah haddii aan refresh u dirno wuxuu soo qaadanayaa themeki haddii aan gacanta ku install gareynay themekana waa tacab iyo tacliin aan ku shubnay wordpresskaas ahay tacab iyo tacliin waa titlekii hadaaye inta aan sheegaynay titlekan u baahnaa just for another wordpress site kana waan bedelaynaa menugan designkan iyo waxyaabaan waan bedelaynaa next lecture ayaan ka dhigaynaa insha allah.